السلام عليكم maanta barnaamijka waxa uu hadli doonaa maxay tahay farqi u dhaxeeyo PropFarm iyo sidoo kale account broker ah runtii topigan wuxuu noqday topic dad badan oo traders ah suuqa ku cusub iyo kuwa hore ugu jira ee ku wareereen pros iyo cons-ka ay kala leeyihiin pros markaa dhahay macnaha faa'iidada iyo khasaarada labadaba ay kala wataan aan ka hadli doonaa midda koowaad PropFarm waa company kuu sahlaya in aad ku trade garaysid lacag badan lacagtaasna aad ma lihid waxaa iska leh company-ga laakiin sida company-ga aad lacagtaas uga qaadatid waxaa u baahan tahay in ay martid test oo la yiraahdo challenge taasoo ah haddii aad ku baastid waxaad helaysaa akoon ay ku jirto khidmad badan sida $50,000 $100,000 iyo wamaazada so haddii aad rabtid marka PropFarm in aad ku shaqaystid mid koowaad faa'iidada ay leedahay taas laakiin xagga brokerka waxaa u baahan tahay in lacagtaada yar aad akoon ku shubatid ayadana aad ku trade garaysid balse PropFarmka statistically waxaa la soo ogaaday in dad haddii 100,000 oo traders ay qaataan account challenge ah in keliya dad gaaraya 13 qof in markaas ay fund stage ka tagaan oo withdrawalkooda ay sameeyaan taas meesha waxaa kaaga cad losing rate-ka oo xagga PropFarmka in uu aad ugu badan yahay markii loo eego brokerka sababta keenaysana waxay tahay broker yani PropFarmka waxay leeyihiin daily drawdown oo ah maalinkii haddii aad khasaartid 5% ka badan in akoonka markaas kaa gubi doono halka brokerka aa haystid akoonkaaga 100% inta aad rabtid aad khasaari kartid inta aad rabtid aad faa'iidi kartid taasna waxay keenaysaa in PropFarmka dad badan markaas ay daily drawdown ka taabato sababtoo waxaa ogaataa haddii aad 10% ama 20% dib u dhacdid still waa soo recover garan kartaa micnaheedu waxay tahay $100 haddii akoon aad ku shubatid $5 maalinkii $6 haddaa khasaartid for example PropFarmka akoonku way kaa xirayaan laakiin xagga brokerka $100 maanta waa khasaari kartaa $50 waa khasaari kartaa xor ayaa u tahay okay midda labaad waxay tahay payout problemka oo ka taagan xagga PropFarmka waxaa ognahay in PropFarm badan ay soo baxeen sida the funded trader my forex fund iyo PropFarm kale oo soo xiga PropFarmadaas hadda soo sheegay waxay ahaayeen kuwa labaad ee ugu weynaay xagga company ahaan ee proprietary firm xagga forex-ka balse hadda waxay ku dambeeyaan nooc min scamming ah qaarkoodna waxaa xirtay regulationka qaarna yani liquidity-ga way isbixi waayeen oo waa la xiray marka xagga payout-ka PropFarmka problem ay ka jiro iskuma haleyn kartid intooda badan sidoo kale xagga brokerka payout-ka waa fast waa good waana 3 daqiiqo oo 5 daqiiqo akoonkaada markaas lacagta waad kala bixi kartaa sidoo kale midda saddexaad waxay tahay PropFarmka siday u shaqeeyaan jadwal ahaan ayaa waxay tahay in adiga trader ah challenge ay ku dhacdid si ay lacag badan u helaan traderska kale oo ayagana faa'iido sameeya si ay markaas u reward gareeyaan sababtoo PropFarmka waagi hore waxay iska dhigi jireen in lacag real ah ee dadka ku invest gareynaya balse markii dambe waxaa la ogaaday markii la xiray my forex fund regulationka Canada ay shad gareeyeen PropFarm walbo in uu markaas sheegay in lacagaha dadka ay u dhiibayaan ay yihiin lacago demo ah oo lacag simulation ah oo live trading markaas lagu trade gareynayn taasna waxay keenaysaa in PropFarmka si uu lacag u helo danta waxaa ugu jirto in adiga challenge ku dhacdid that's why 95 93 97% dadka ay u dhacaan si ay u helaan liquidity dadka kale ee lacagtooda markaas siin karaan laakiin halka brokerka uu ku xisaabtamayo commission iyo spread wuxuuna rabaa in mar walba aad sii joogto haddii uu yahay brokerka book broker taasina waxaa waaye qodob kaloo yani PropFarmka iyo ku kala duwan yihiin iyo proprietary firmka qodobka afraad wuxuu yahay PropFarmka lacag badan ay ka sameyn kartaa sababtoo lacagta aad ku trade gareynayso way badan tahay for example laba qof ayaa waxay qaadatay $100 qofna wuxuu la aaday PropFarmka qofna wuxuu la aaday brokerka kan PropFarmka la aaday waxaa laga yaabaa in markaa la siiyo package $10,000 ku jirto laakiin kan brokerka la aaday $100 qallan oo akoon ku shubto kadibna la dhaho trade gareey marka $100 in aad $1,000 soo saartid ama in aad $300 soo saartid way adag tahay sababtoo riskiga waxay noqonaysaa hadhow inaad u bereertid $100 inuu gubtane zaid ayuu riskiisa u sareeyaa laakiin halka PropFarmka $100 haddii aad qaadatid akoon $10,000 loo siiyey challenge haddii aad ku baastid sidoo kale phase 1 iyo phase 2 macnaha haddaa aad dhaaftid waxaa samayn kartaa $300 $400 $700 even $1,000 iyo ka badan marka taasna waxay tahay waxyaabaha ee PropFarmka marka ay ku fiican yihiin midda kale ay ku kala duwan waxay tahay qodobka shanaad brokerka markaa lacag ku shubatid pressure kuma saaran in aad markaas challenge gudubtid ama testigii imtixaankii lagu soo diray halka PropFarmka aad u baahan tahay in aad testigii gudubtid taasina waxay keenaysaa in pressureka oo kugu ziyaado sababta waxaa laga rabaa in aad lacag samaysid target caymanna samaysid si aad u gudubtid testiga labaad
tesla idan waxa lagaaga baahanyaa idan inaad target cayman samaysid si markaas aa u gaartid stageka ay yidhahdaan funded account taasoo ah wixii markaas aa shaqaystid in aa heli kartid 70% hadba si broker yani profanka markaas lacagta ay u kala siiyaan traderskooda balse xagga brokerka sidaas shay way kala duwan tahay okay hadalkii ugu dambeyntii maxay igula talinaysaa haddii ay dhahdid waa kala qaadaya haddii aa cusub tahay waxaa kugula talinaya in markaad broker aa soo martid experience level aa soo heshid because tradingka life environmentiga wuxuu wataa stress wuxuu wataa challenge wuxuu wataa emotions waxaa u baahan tahay experience level aad soo qaadatid si professional trader yani markaas ahaan aa u fikirtid balse xagga profamka waxaa kula talinaya qof soo maray life trading account broker soo maray experience level soo helay kadib broker yani profam aad kuma dhahay waxaa u baahan tahay markaas inaad qaadatid free trial oo ah inaad istijaabisid adigoo ruleski yani markaas life yani free trial ida ahayn oo jirto ruleski maxaa la yidhahdaa oo baasinta ah laakiin qaab min free akoonka ma gadanaysid laakiin ruleski iyo wax walba oo lagu baahan yahay qof markuu profam account qaato maraya ayaa maraysa taas marka ilaa 5 jeer 4 jeer 3 jeer tijaabisid waxaa kuu fudud marka in hadhow adigoo diyaarsan profamka toos wajihi kartid balse soomaali ayaa nahay waxaa ognahay in degdega ama wax dhaqsi in loo helo in markaas ay nagu weyntahay taasna waxay keenaysaa in dhalinta badan ee traderska ah hadda suuqa bilaabay ama suuq bacbaar ku jiray in markaas ayagoo experience-kooda enough ahayn in ay ku cararaan suuqa taasna ay sababto hadhow in broker yani profam accountmadooda in ay lose garayaan marka insha allah video waa kaas pros and conska kala baxso buuga qilin qaado kala qor midii kuu soo baxdane markaas adiga ayaa kala dooran karo marka insha allah muuqaalkiiska intaa ku kulmi doono waxaan idin rajeynayaa khayr